السلام عليكم قدوميس معنا الحمد لله magacaygu waa Shakuur waxaan kamid ahay ardayda sanadkan qalin jabisay waxa ay soo gaadhay xayisiis aad sameyseen oo boosas ka banaanaa oo shaqo ah shirkadda runtii anna waxaan isku arkay inaan ahay qof ku habboon kala soo bixi kara shaqadaas xirfadeedina leh kulliyadda aan jaamacadda ka soo baxayna waa maaliyadda oo iyo xisaabaadka oo runtii si wacan aan u garanayo sidoo kalena xirfadeeda dhabta ah marka waxaan CV-gan oo doonayay inaad insha Allah aan idin soo gudbiyo صح كان CV-gaagii اوكي waa si wanaagsan sameyn doonaa aan kula soo xiriiri doonaa inaan soo hadli doonaa kulli contacts ka halka bay ku xusan yihiin marka soo xiriirna insha Allah thank you hadda ma sante aniyo riyahan waxaad moodaa ku CV ah inay warbateen ninka odaga ahaa Suudaanka ahaa ee wiilka yar igula dardaarmayay Hello, Sultane. Haji Sultan Ismail. Yoran. Namad qabwi in balorta hadii xasuusta Sultan wiilkii in adigu balaminaysay magaciisa muxuu ahaa waxoogaa CV iyo waxba meesha igu yar batayo oo isoo xasuusiyay wiilkaadii kante. Wiilkaadii kante. Good. Okay Sultan. Waad ma santa. Insha Allah waxaad ku tiraahdaa berito shaqada soo galda insha Allah inoo bilaamaysa hawsha. Waa Sultan waad ma santa aad ma santa. Soo xiriirna insha Allah. Ay Sultan. Riyahan meeshii way tuulantay. Ana faylada iyo sifiya. Ciidamadii ba i keenay oo yaashahay shaqo doonka ahaa. Halkaas ku habooyin baan marinaya. ma garan karo niyad jab ka weyn oo qof dhalinyaro loo geysan karo oo imika soo qalin jabiyay doonaya dadkiisa iyo dadkiisaba inuu wax taro isagoo leh xirfadii iyo aqoontii iyadoo laga doorbidayo qabiil iyo nin jeclaysi maanta waxay taagan tahay waqti loo baahan yahay xal waa laba mid ama inaan gacmaha taagno oo isdhiibno oo dhahno maalin walba ninkii la garto shaqo hal siiyo ama inaan dhahno war inaga inagu dhacday yani lise laakiin jiilka inaga dambeeyo ku dhicin inaan inagu hormud u noqono inaan diidno cadaalad darada iyo qabyaaladda adigu sidee xal u aragtaa